kulanti wacan daawadayaal halkaani waa NTN TV kusoo dhawaada warkeena duhurnimo qodobada ugu doorka roona waxaa kamid ah xubno ka tirsanaysa oo xabsiga la dhigay iyo sifayn xoogan oo ka socota hay'adda xog ayaan idinkaga haynaa danab iyo nabad sugidda oo gacanta ku dhigay horjooge ka tirsan al-shabaab maxay tahay waxa ex madaxweyne Farmaajo maanta loo dhaarin doono xog ayaan idinkaga haynaa galmudug oo ka jawaabtay dhismaha cusub ee koonfur galbeed maanta la xarig jaray maxay yihiin dhaliilaha laga diiwaan geliyay safarkii Baydhabo madaxweyne Xasan Sheekh wararka dibaddana waxaad ku maqli doontaan haweeney ninkeeda dartiis u wada dishay caruurteeda qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin soo jeedin doonaa intaan warkeena duhurnimo ku jirno ee daawasho wacan waa maalinimo Arbaca taariikhduna ay ku aastaysan tahay 1 bisha Juun sanadka 2022 daawadayaal markaana ku soo dhawaada warkeenii duhurnimo oo faahfaahsan qodobka koowaad waxaa noo aqrin doona saaxiibkay Liibaan Maxamed Aadan oo garabkayga fadhiya Liibaan ku soo dhawow waa maasad tahay Sikriye tani markii uu xilka la wareegay taliyaha cusub ee Nisaa Mahad Maxamed Salaad waxaa taliska nabad sugidda ka bilowday isbedelo lagu sameynayo shaqaalaha iyo xilalka sida ay ogaatay NTN TV tilabadii ugu horeysay ayaa noqotay in xilalkii laga qaaday taliyaashii garoonka diyaaradaha Muqdisho gobolka Banaadir iyo Maaliyadda dhammaan boosaskaasi ayaa loo magacaabay xubno cusub taliyaha Nisaa ee gobolka Banaadir waxaa loo magacaabay Muxidiin Warbac taliyaha garoonka Aadan Cadde Xamdi Xasan Maxamuud iyo hoggaanka Maaliyadda Nisaa loo magacaabay Iimaan Ilman hoggaanka cusub ee Nisaa ayaa bilaabay inuu bartilmaameedsado xubno loo arko inay aad ugu dhawaayeen taliskii hore ee kooxdii nabad iyo nolol waxaana xabsiga la dhigay ilaa 3 sargaal oo laamaha kala duwan ee Nisaa ka howlgala saraakiisha la bartilmaameedsaday ee shaqada laga eeriyay isla markaana xabsiga la dhigay waxaa ka mid ah Shilaani Maxamed oo Nisaa u joogay qaybta iskaanka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho lama oga sababta rasmiga ah ee sargaalkaasi loo xiray iyo inay xiriir la leedahay ereyada taliyaha garoonka oo laga tirsanayay ee la xiriirta fulinta amaradii lagu dhibaateyn jiray madaxda mucaaradka xiliyada garoonka ka soo degayeen ama ka dhoofayeen ugu dambeyntii waxaa la filayaa in taliska cusub ee Nisaa uu sii wadi doono shaqo kaariyada iyo magacaabista xilal cusub waxaana shaqaalaha badankoodu ay farta wadnaha ku hayaan inay seefta qaadi doonto in kale halka aad nagala socotaan waa NTN TV ciidamada kumaandooska xoogga dalka danab iyo nabad sugidda Jubbaland ayaa soo qabtay horjoogihii argagixisada al-shabaab u qaabilsanaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose Maxamed Cabdi Mukhtaar oo magaciisa afgarashada ah ee kooxda looga dhex yaqaan uu ahaa Sarqaawi ayaa lagu qabtay howlgallo ballaaran oo ciidamada huwantu ay ka fuliyeen deegaano dhaca galbeedka magaalada Kismaayo waxayna ciidamadu dileen 4 dhagar qabe oo ilaalo u ahaa horjoogaha la qabtay ciidanka qaranka ayaa cagta mariyay goobihii nabadiidku baada ay uga arursan jireen dadka shacabka ah waxayna saraakiishu warbaahinta qaranka u sheegeen in howlgalkani uu qayb ka ahaa halgan bilow ah oo lagu baacsanayo argagixisada al-shabaab ciidamada dawladda ayaa maalmahan laba jibaaray howlgalka lagu baacsanayo al-shabaab iyadoo sidoo kalena la filayo in dawladda cusub ay ku dhawaaqdo qorshaheeda xoreynta dalka madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa berri loo dhaarin doonaa xubin sharafeed ka tirsanaan doona baarlamaanka Soomaaliya Farmaajo ayaa la mid noqon doona Xasan Sheekh Maxamuud oo codkiisa doorashada madaxweyne qayb ku lahaa sida ay tahayna waxa uu noqon doonaa xildhibaan aan dhicin ilaa uu dhinto xubno ka agdhow guddoonka golaha shacabka ayaa inoo xaqiijiyay in kulanka berri xildhibaanada yeelan doonaan lagu dhaarin doono Farmaajo ex madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mucaaradnimo badan abuurtay intii uu xukunka hayay maamulkiisii la baxay nabad iyo nolol iyadoo xubno badan oo siyaasad ahaan ay iska soo horjeedeen ay hadda baarlamaanka ku jiraan madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhismo cusub oo loo hirgeliyay dhawaan waxaa maanta wadajir xariga uga jari doona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen dhismahaasi ayaa ahaa mid bilicsan loo dhisay waxaana ku shaqeyn doona madaxda koonfur galbeed qaybteeda ku sugan Baydhabo Janaayo haddaba galmudug ayaa ka jawaabtay fariinta ka timid Baydhabo iyadoo caawa maqribkii soo bandhigtay sawirro ku saabsan dhismaha madaxtooyada galmudug ay dhistay
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisa baydhabo kadib tegi doona dhuusamareeb isagoo xarig jar ku samayn doona xarunta villa galmudug ee la dhisay. madaxweyne axmed qorqor ayaa sheegay in dadaal badan ay bixiyeen kadibna ay ku guuleysteen in la hirgeliyo dhismahaasi quruxda badan ee la dhisay. markaana waxaan kusoo dhaweynayaa saaxiibkay liibaan maxamed aadan oo noo faahfaahin doona maxay yihiin dhaliilaha laga diiwaan geliyey safarkii baydhabo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. falcelin badan ayaa ka timid qoraal la soo geliyey shalay bogga Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadaneed wax u qaab eeg olole inuu ku jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud. dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintan mid aan xilligan looga baahnayn warbaahinta qaranka iyo bogga Villa Soomaaliya, isla markaana loo adeegsado booboonid ama wax loo ekisiyo olole doorasho in lagu jiro. dhinaca kale, Abshir Maxamed Buqaari oo ah madaxa kala guurka kooxda madaxweynaha xasan sheekh ayaa ka hadlay safarka nabadda ee madaxweynaha ka bilowday dowlad goboleedyada tareenka nabadda ee madaxweynaha xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka shidal qaadanaya mabaadi'da guud ee dastuurka dalka isla markaana filinaya mid ka mid ah ajandayaashii siyaasadeed ayaa maanta safar rasmi ah u tegay magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mutaxleedkiisii labaad safarkiisii koowaad ku tegay magaalada madaxda Koonfur Galbeed ee Baydhabo, isagoo mutaxleedkiisii hore safarkiisii koowaad ku tegay isla magaalada Baydhabo Oktoobar 2012. arrintan oo ka marakacaysa sida uu madaxweynuhu ugu helay yahay ka rusheegidda ballanqaadyadiisii siyaasadeed. sidoo kale, madaxweyne xasan ayay ujeedadiisu safarkiisu tahay u gurgelidda xaaladda bini'aadantinimo ee dalka, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed, iyo inuu mar kale ka shaqeeyo sidii ay ummadda Soomaaliyeed ugu noolaan lahayd xasillooni siyaasadeed, mid bulsheed iyo weliba midnimo dhuleed. waxaa xusud mudan in madaxweynaha uu rumeynaya halkudhigiisa ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, uu safaro ku wada mari doono dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka sida Galmudug, Puntland, Jubbaland iyo Hirshabelle. daawadayaal halka aad nagala socotaan weli waa NTN TV. wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in sicir barar baahsan oo xoog leh uu ka jiro magaaladaas, taas oo saameyn ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku nool. ganacsatada magaalada Beledweyne ayaa waxaa la sheegay in ay bilaabeen in ay joojiyaan iibinta badeecadooda sida ay xogta ku heshay NTN TV. ayaa salka ku haysa laba arrimood oo kala ah badeecadii magaalada Beledweyne kaga imaanaysay magaalada Boosaaso inuu gabaabsi ku yimid sababo la xiriira badxiranka jira. waxa ayna taasi keentay in ganacsatada Boosaaso badeecada u soo iibgeyn jirtay magaalada Beledweyne ay inta badan joojiyaan maadaama badxiranka uu saameyn ku yeeshay. arrinta labaad ayaa ah in baabuur tiro yar oo badeecad sida kuna soo wajahan Beledweyne lagu soo rogay canshuur dheeraad ah. waxaa la sheegay in ay canshuurtan ku soo rogeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne iyo Matabaan. intaas waxaa magaalada Beledweyne markii horeba u sii dheeraa lacagta shilinka Soomaaliga oo aan ka shaqaynin. daawadayaal, haddana ku soo dhawaada warkeena dibadda. haweeney 30 jir ah ayaa tuulo ku taala gobolka Maharashtra ee dalka India ku dishay 6 caruur ah oo ay dhashay, kuwaas oo ay ku tuurtay ceel biyo ku jiraan. markii ay falkan samaysay kadib ayay iyaduna qudheedu isku dayday in ay isdisho. dadka tuulada ayay u suura gashay in ay badbaadiyaan haweeneydan ku lugta lahayd dhacdadan naxdinta leh. hase yeeshee dhammaan caruurtii ayaa ku dhintay biyaha ceelka oo ay ku hafteen. booliska degmada Ragayda ayaa xabsiga u taxaabay hooyadan oo lagu soo oogay dambi dil ah. sidoo kale ninkeeda ayay boolisku xireen si ay su'aalo u weydiiyaan. booliska Ragayda Ashok Dududa ayaa wareysi uu BBC-da siiyay waxa uu yiri caruurta dhammaan waxay isugu jireen 5 gabdhood iyo 1 wiil. wiilka ugu yar waxa uu ahaa 1 sano, gabadha ugu weyn waxay jirtay 10. dhacdadan argagaxa gelisay dadka deegaanka ayaa gelinkii dambe Isniinta ka dhacday tuulo lagu magacaabo Dakhlati. aabaha qoyska Shukru Sahani oo 33 sano jir ah ayaa halkaas soo degay muddo bil ka hor ah, xilligaas oo uu ka soo guuray gobolka magaalada Khurraabure. waxa uu tuuladan u yimid si uu uga helo shaqo uu nolol maalmeedka uga raadiyo xaaskiisa Ruuna oo 30 jir ah iyo 6 caruurta ay dhaleen, sida uu sheegay taliyaha booliska degmada. daawadayaal, warkeenii duhurnimo ee aad kala socoteen NTN TV oo maanta aan si wada jir u soo tabinaynay anigoo Sakariya iyo Liibaan Maxamed Aadan. intaas ayuu nooga eg yahay warkaan warka xiga inta aan ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.